حكمت إيو أقوم قرح إيو حشود حصل إيو دذال حوالي ذاتو حاكم سيئي سيئي حكمت إيو أقوم. السلام عليكم أصحاب ميل والباجوكتان إن وادو جدان وحنا إمادين فنانينتي وإن مارك أصحاب ترينر ويسودوين سدوا كل فنانين مارك هذا يسودوين أيان إن أنكسب بلابو إن دانك دومك جالس فست على مكتاي قبل أنكسب بلابنا هاي بريق هاي maanta u taagan meeshan walaalkeena Saciid Taariiq waxaan leenahay ku soo dhawow macil loon doonto kulli meeshan anaka ku joogno aad u faraxsan waa naga laaban doontaa insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa abtigay marna fanaankeyga waxaan leeyahay welcome Nairobi mar walba waa sugi jirnay in badan aan sugeynay farxada ii taa maanta inaan la kulmo waan ku soo dhaweynaa ما شاء الله waxaan ku soo dhaweynaa Saciid Taariiq fanaankeenna marna walaalkeena oo noogu yimid dalkii hooyo Muqdisho ku soo dhawow Nairobi wala konti Nairobi kariib sana brotherkeyga thank you هاي waxaan ku soo dhaweynayaa fanaankeenna Saciid Taariiq oo kamid ah fanaaniinta xamar kuwa loo jecel yahay waxaan ku leenahay brother welcome to Nairobi welcome to inshallah taariikh 14 February Valentine Day laga soo qayb galo inshallah shugunu kala kacaya aad iyo aad baan bulshada reer Nairobi u salaamayaa saaxiibkay Saciid Taariiqna aad baan u salaamayaa aadna waan soo dhaweynayaa si maxay ahaday qalbi furan oo kaliya laba aad ma laha waa dhibkaas kabaan ku dheereynaa saaxiib anagoo ku soo dhaweynayna magacaaga iyo magaca caasimada ka timid ummadda Soomaaliyeed ku soo dhaw Nairobi ku leenahay anagoo isku duuban habeenka showgana maxay ahaday sida caada aan u lahayn Nairobi lagu bartay wixii adigana aan ka sugeynay baad ummadda u soo bandhigi doontaa ku soo dhawaas marteenin magaalada Kabalaan soo saaxiib ديار أنا أقدر أتخصص فيها ولا هذا halkan waxaan ka soo dhaweynayaa walaalkayga Xasan Taariiq waxaan leeyahay welcome to Nairobi magaalada laga jecel yahay magaalada waaye hadii la dhaho Francisca de Falbuena haystaan anaga Saciid Taariiq haysana xagga gabnida waa ninka kaliya iga dheer aan aaminsanahay brother welcome ku leeyahay marka la kaashay abdi soo dhaw aad baan ugu dhawahay runtii waxaan leenahay saaxiibkay Saciid Taariiq ku soo dhawow Nairobi oo ma garanaysaa ee caasimad iyada lafsikeedu Soomaaliyeed habeenka 14 kana waxaan leeyahay maaragtay dharka cascasiyo hablaha cascasiyo namada cascasbaha yimaadeen ما شاء الله هاي غالي makarafanka hoos iiga dhigay yaa la ii jeed weynay horta walaalkay waxaan leeyahay soo dhawow maanta dhan qoraxda waxaan u taagnaa ana madow xitaa waa madoobaad fahanti dartaa waaye noogu soo dhawow Nairobi reer Nairobi waxaan u sheegayaa sida qurux badan horta asxaabta ku soo dhaweeyay fanaaniinta waa u mahad celinayaa because wiilkan waxa weeyaan waa saaxiibkayga maanta aniga aragtiisa igu horeyso waxaan rabaa inta kale ee showga ka soo qayb gali doonto inay soo diyaariyaan wiilka ay dhahaan reer Muqdisho ay dhahaan waa wareey Muqdisho labaada Nairobi noogu taalo insha Allah taala waana 14 February waa maalinta jaceylka aan maalinta naciibka waa qaanahay qofal maanta wuxuu dhahay ma taqaanay maalinta jaceylka dad badan oo ogayn jaceyl ma haystaan ma faatay wallahi dadka naciibka leebis kugu imaado meeshaas hadaa ogtahay ayo waa kaasa thank you qaaladan waxaan aad ugu mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo suurtagelinaa nabad ku imaado iyo dhamaan inta isoo dhaweysay qaban qaabada laheed oo aad koow ka tahay Big Bro walaalkay group ismadaanto youtuberska janaalada ee maxaa la raagi iyo koronto iyo dhamaan shacabka iyo fanaaniinta iyo jalayaasha kulli aad kaga mahad celinaa runtii lama soo koobi karo waxaan oo dhan ma filanaynin soo dhaweyn iyo jacayl iyo maxabadan aad ugu faraxsanaa runtii thank you so much adan leeyahay boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsantahay thank you very much waxaan rabaa Saciid fursad inaan siiyo sidoo kalena asxaabtana inaan fursad siiyo si ay maaragtay ayagana uga hadlaan iyo in badan aan sugeynay diyaaradda way soo daahday
waxaan rabaa marka qof walba inaan fursad siiyo saciid sidoo kale Nairobi kusoo dhawow waa magaaladaadii aad baan ku sugeynay maanta oo dhan dad kalena way soo socdaan fanaaniintina sidoo kale dhammaan reer Nairobi wax soo kala arimalaan adiga hal iyo labo runtii horta ilaahay mahad iskale oo nabad igu keenay waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan inta soo qaban qaabisay waxaan aad ugu mahad celinayaa wiilashii gabdhaha qoraxdan aan dartii u taagnaa waxaan soo xasuustay maamaadii eed maaragtay qof kaligiis iskuma filno wax kasta uu yahay hadduusan garab haysan يعني wax ay maaragtay uu yahay malaha soo aad ugu faraxsanahay maraan niyadii iska dhaay showga saana ku qabatay intaana umad aad ugu maarsantii runtii aad baan idin jeclahay jacaylka aad muujiseen iyo maaragtay soo dhaweyntan weyn aadan kaga madcelinayna gabdhaheena iyo wiilasheena dhawaan aad u maarsantiin big bro aad u maarsantahay kaafi walaalkii raaga dhammaan youtuberska waxaan idin leeyahay thank you so much الله يعزك waxaan meeshaan u taagneen walaalkeen Saciid Taariikh waano imaaday nabadu ku imaaday 14 Febraayo maal dhigi jiray soo saasma maalinta jaceelka ana ceebayna naga shida marka waxaan leenahay reer Nairobi waxa aadeen dad fanka aad u xiiseeyo mugtahay marka walaalkeen waxaan leenahay maalintaas hadee yaan loo kala harin oo ma aragtay juka la soo dhaw marka waxaan leenahay walaal macaan soo dhawow Nairobi ku soo dhawow maxsalaam الله يعزك سعيد وسو دwow magaaladaadi waaye my brother oo ku taaganahay team Somali kay stars sadanahay asxaabtana way ku wada joogan dhalinyarada iyo youtuberleyda tiktokleeda maanta wax soo haran ma lahan adiga soo dhaweyntaadana u taaganahay intaasna adiga maaragtay waxa kasbatay weeyaan marka soo dhawow Nairobi adiga iska leh anagana waa ku taaganaa garabkaaga taaganaa mar walba oo ku faraxsanahay walaalkay Saciidna soo dhaweeyo team gabgabyaasha ku soo dhaweeyo garabkaaga taaganahay thank you ego hadda maaragtay kan baago sameeyay ma sha Allah ma hadda wada joognaa insha Allah ma sintina saabto thank you halkan waxa ku soo dhaweynaynaa maanta isku wada imaan dhamaanteena walaalkeen Saciid Taariikh marka waxa ku leenahay brother dartaa meesha u taaganahay noo soo dhawow aad baad u mahadsantiin asxaabta dhammaan maaragtay nala soo dhaweysay saaxiibkeen Saciid Taariikh aan waxaan u maleynayaa waa fanaankii saddexaad oo aan ma garanaysaa soo dhaweeyo waxa weeyaan fanaankii hore wuxuu ahaa Dayax fanaankii labaad Dalmar fanaankii saddexaadna Saciid Taariikh buu noqday marka Muqdisho waa fanaankii labaad ee ka soo dhaweeyo maadaama uu yahay aniga sidoo kale fanaan aan heesiisa aad u jeclahay oo waliba ay ugu horeysa heesta ah maaragtay may waa been jacayl maaha waa been jacayl iyada dadka waa hees macaan laakiin heestan ah heestan fahano ujeedada biya qalbigayga ka fiiriya marka wax weyn heestan aad uga jeclahay oo hadda waxa baabuurka iga daarnay marka soo socday fanaan waxa tii magaaladaadii runtii Nairobi ha fiirin laakiin Nairobi yani waxa waa magaalo labaad oo maaragtay Soomaalidu ay leedahay ama wadankooda labaad ee Soomaalida ku soo dhawow iyo waliba habeenka jacaylka adduunka de maaragtay wax weyn dadkii isjeclaan jiray iyo ma garanaysa hadda iyagoo dhar cascas de walaal hanagu ceebaynina sawirka maaragtay ay dhalaa ku gala meel كان ينفع وكدير والله عذر الله يخاف فناك وكدير نص متر أصلاً سيف عن أنا كهلا أفك اسمنانتو فنان ورت اسمنانتو أنا هدي أنا يصيدوا كلا أصحاب نيروبي كتاعنا كلنا إيربودا ورت فنان اسمناتو إيمانين على ليلة مسوب دبينا دي كرا وكتاعنا براد وحكولنا ويلكم تو نيروبي وحن تاعنا هاي قرون كي جيد الديار ذا إتشوم كيات إيربوت فنان وحكولنا ويلكم تو كينيا مركل سود وكلنا إن شاء الله وحنسكنا بوهبين كي أتكل إذا مجال نيروبي ذكي أسكو أدينا وحقب خبينين ما شاء الله سخروح بنو إلى نوجولة وحنكلنا هاي ويلكم إن شاء الله وحرجينا شوقنا خالك دقنيا بلا يرضى سوا